shirkadda Cadceed Group dharka ay dalka keenaan waxa raga dhameystiran quruxna loo daa habeen wanaagsan dhamaantiinba ku soo dhawaada warka habeen ee idaacadda kulmiye qodobada caawa aan idin hayno kuwooda ugu waaweyn waxaa kamid ah qarax ay dad ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ciidamada Itoobiya iyo Al-Shabaab oo ku dagaalamay gobolka Baay dad shacab oo halkaasi lagu dilay kumanaan shacab ah oo maanta ka qayb galay muxaadaro uu Muqdisho ku qabtay Sheekh Kenyaawi taliska ciidamada booliiska Soomaaliya oo sheegay inay xabsiga dhigeen askari la sheegay in dad shacab ah uu ka qaaday lacag baada rag loo haystay inay ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay magaalada Nairobi oo maanta maxkamad ka soo muuqday dil salka ku haya aana qabiil oo maanta mar kale ka dhacay xadka kala qeybiyay gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe in ka badan 20 qof oo ku dhintay qarax ka dhacay dalka Colombia iyo dawladda Zimbabwe oo dalkaasi ka mamnuucday isticmaalka adeega internetka Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo adna qaado Hormuud saaxiibkana u qaad markale habeen wanaagsan waa habeen Jimcaha taariikhdu ay ku beegan tahay 18ka bisha 1 January sanada 2019 warkaasi oo fidsanaa waxa la diyaara Farxiyo Xuseen Cali waa maasan tahay Maxamed Cali Maxamed habeen wanaagsan warkii oo dhan qarax dad ay ku dhinteen ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay wariyaheena Axmed Cabdiqaadir Yiro oo magaaladaasi jooga ayaan ka wareysanay aad ma santahay caawa fiidkii waxa magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ka dhacay qaraxaasna waxa uu ka dhaxdashay gudaha mooto bajaaj oo ay wateen laba ruux oo iyagu saarnaa mootada waxaana labada ruux ay ku dhinteen qaraxaasi waxaana dadka goobjoogayaasha waan la hadlay ii sheegeen in qaraxaasi uu ka dhaxdashay gudaha mootada isla markaana dadkan ay wateen bam nooca gacanta laga tuuro isla markaasna uu ku qarxay iyaga labadiina sidaas ay ku geeriyoodeen ilaa haddana ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka oo ku aadan arintan sida ay u dhacday waxaana aan xiriiro kala duwan la sameeyay laamaha ammaanka waxay ii sheegeen inay wadaan baaritaan ku aadan sidii ay u ogaan lahaayeen waxyaabaha sababay in qaraxaasi mootadaasi dhaxdeeda uu ka dhaco in iyaga ay wateen iyo in lagu turay in kale balse goobjoogayaashu waxay ii xaqiijiyeen in dadkaasi bamka iyaga ay wateen gudaha mootadana qaraxa uu ka dhacay ciidamada Itoobiya Al-Shabaab ayaa waxa ay ku dagaalameen gobolka Baay iyadoona dad shacab ah halkaasi lagu dilay Maxamed Cali Maxamed ayaa faafahinaya warar dheeraad ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay dagaal Al-Shabaab iyo ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya ku dhaxmaray degmada Buurhakaba ee gobolka Baay ugu horeen Al-Shabaab ayaa kolonyo ka tirsan ciidamada Itoobiya oo ku socdaalayay degmada Buurhakaba waxa ay la beegsadeen qarax kadibna waxa xigtay sida dadka deegaanka ay noo sheegeen dagaal toos ah oo dhaxmaray Al-Shabaab iyo ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM dagaalka oo saacado badan qaatay ayaa waxa ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac oo kala gaaray ciidamadii halkaasi ku dagaalamay qasaaraha ciidamada Itoobiya qarax iyo dagaalka ka soo gaaray ayaa waxa lagu sheegay inuu ka badan yahay 12 askari oo dhimasho ah iyo 2 gaari oo Al-Shabaab ka qabsadeen ciidamada Itoobiya ee ay ku weerareen degmada Buurhakaba ee gobolka Baay dhinaca kale Al-Shabaab saraakiisha ciidamada militariga Soomaaliya iyo gobolka Baay waxa ay noo sheegeen dhankooda dagaalkaasi looga dilay dagaalamayaal baraha internetka ay ku leeyihiin Al-Shabaab waxa ay ku sheegteen in dagaalkaasi ay ku dileen ciidamada Ethiopian oo tiradoodu ay ku sheegeen Al-Shabaab 57 askari sidoo kale Al-Shabaab waxa ay sheegeen in dagaalkaasi ciidamada Ethiopia ay kaga gubeen 2 gawaari oo nuuca dagaalka ah weerarka lagu qaaday ciidamada Itoobiya kadib ciidamada ayaa toogtay dad shacab ah oo beeraley ah kuwaasi oo ka agdhow halkuu ka dhacay dagaalka inta la xaqiijiyay 12 qof oo shacab ah ayaa la sheegay in ciidamada Itoobiya ay toogteen wararkii ugu dambeeyay caawa naga soo gaaray gobolka Baay ayaa ku waramaya in xaalka deegaanku uu degan yahay laakiin saraakiisha militariga Soomaaliya gobolka ayaa waxa ay noo sheegeen inay wadaan dhaqdhaqaaqyo ku aadan sidii ay u sug lahaayeen amniga degmada Buurhakaba ee gobolka Baay oo ay maanta ku dagaalameen ciidamada Itoobiya iyo kuwa Al-Shabaab kumanaan shacab ah ayaa maanta waxa ay ka qayb galeen muxaadaro oo Muqdisho ku qabtay Sheekh Maxamed Ibraahim Kenyaawi Cabdullaahi Xuseen Canshuur ayaa ka waramaya
in ka badan 10 kun oo shacabka Soomaaliyeed ah oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir ayaa gelinkii dambe ee maanta isugu yimid garoonka kubadda cagta ee Banaadir Stadium ama Konis si ay uga qayb galaan kulan wacyigelin ah oo Muqdisho u yimid Sheekh Maxamed Ibraahim Kenyaawi. waxa uu ahaa kulan wacyigelin oo la wada sugayo isla markaana baaqday toddobaadkii hore. sababaha toddobaadkii hore u baaqday ayaa ahaa baaxadda halka lagu dhigay ee hoolka Sahal oo qaadi waayay xaddiga dadkii ka soo qayb galay oo aad u tiro badnaa. dawladda Soomaaliya ayaa maalintaas ku dhawaaqday in kulanka wacyigelinta uu baaqday dibna loo dhigayo isla markaana lagu qaban doono goob ka ballaaran halkii marka hore damacu ahaa in lagu qabto. maanta oo Jimco ah oo ahayd muddada dawladda Soomaaliya iyo shiiquba ay go'aamiyeen in lagu qabto garoonka Konis ayay dadku soo buux dhaafiyeen. dadka ayaa sidoo kale ahaa inta badan kuwa lugahooda maalaya marka ay gaaraan meel aan sidaas kaga fogeyn xarunta kulanka wacyigelinta lagu qabanayay ee Konis. dadka ayaa sidoo kale lagu soo daabulay basaska gobolka Banaadir oo uu ballan qaaday maamulka gobolka Banaadir oo inta badan dhammaan isgoosyada degmooyinka gobolka Banaadir dadka looga soo daabuli doono si ay ugu sahlanaato soo gaarista garoonka kubadda cagta ee Banaadir Stadium ee Muqdisho. salaadii casir kadib Sheekh Maxamed Ibraahim Kenyaawi ayaa waxa uu soo galay garoonka waxaana mar qura isqabsaday takbiirta iyo sacabka soo dhaweyna shacabka ay ugu dhigayeen Sheekh Ibraahim Kenyaawi. waxaa dhabanadiisa ka qubtay ilin isaga oo dareen jacayl iyo wadaninimo u muujinaya dhammaan dadkii ka soo qayb galay kulankiisa. waxa uuna istaagay bartamaha garoonka Banaadir Stadium isaga oo na jeediyay muxaadaradii ciwaankeedu ahaa walaalka cafi. qaybaha dambe ee muxaadaradiisa ayuu shiiqu waxa uu duceeyay dhammaan ummadda Soomaaliyeed isaga oo na dhammaan dadkii ka soo qayb galay ka codsaday inay iscafiyaan dadka dhintay sidoo kalena ay cafiyaan. waxa uu ku booriyay wadaniyadda iyo dad jaceelka isagoo u sheegay in dalkan uusan lahayn dad aan inagu ahayn. waa lagu dulmay dhul iyo waxa lagu dulmay beer oo laga qaatay xaabadana iyo diyaarku inaad ku bedelaysaan jannaad deeqa diyaarku qofka walba dulmay inuu walaalkii cafiyo diyaarku yahay diyaarku yahay inuu duceeyaan doonayaan diyaarku inta diyaarka ah idinkoo raallihiga ah ha istaagaana gacmahana ha taagaana. allahu akbar allahu akbar allahu akbar. waayahay codka Sheekh Kenyaawi waxa uu dambeeyay warkii wariyaheena Cabdullaahi Xuseen Canshuur. rag bistoolado ku hubeysan ayaa salaadii Jimco kadib maanta waxa ay degmada Hodan ee gobolka Banaadir ku dileen Sakriye Hadaafow kaas oo ahaa gudoomiyihii dhalinyarada ee degmada Hodan. dhaawac soo gaaray ayuuna u geeriyooday gelinkii dambe ee maanta. wararkaasi oo faahfaahsan wararkeena iyo barnaamijyadeena xiga ayaad ku maqli doontaan haddii Allah uu idmo. taliska ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in ay xabsiga dhigeen askari la sheegay in dad shacab ah uu ka qaadaya lacag baad ah. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan dhameystiraya. taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa sheegay inay xireen askari ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliya kaasoo dhawaan ka soo dhex muuqday baraha bulshada xilli uu dadka ka qaadi jiray lacag baada. afyeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Qaasim Axmed Rooble ayaa warbaahinta u sheegay in askariga lagu magacaabo Cabdi Cabdulle Xasan isla markaana ciidanka ay soo xireen kadib markii uu qof shacab ka qaaday lacag baada sida uu sheegay afyeenka. afyeenka ayaa sidoo kale sheegay inay xiran yihiin ku dhawaad 30 qof oo iskugu jira saraakiil iyo askar loo haysto eedeymo ka dhana musuqmaasuq. mar uu warbaahinta la hadlayna waxa uu yiri shalay oo ay taariikhdu ahayd 16 bishii 19 abaara 5 saac iyo bar subaxnimo ayaa askari lagu magacaabo Cabdi Cabdulle Xasan waxa uu joojiyay gaari nin shacabihii uu watay. wuxuu weydiiyay sharcigii laysinkii iyo buuggii. wuxuu helay buuggii markii uu weydiiyay buuggii ayuu helay. wuxuu yiri laysinkii ma hayo mar laaba markii uu yiri laysinkii ma hayo mar laaba markii uu yiri wuxuu
weydiistay lacag laaluusha. lacagtii laaluushka ahayd waa uu qaatay. taliyaha ciidanka booliisku wax kastoo magaalada xamar ka dhaca daqiiqado gudahooda ayuu ogaadaa. mar allaala markii uu ogaaday wuxuu amar ku bixiyey in askarigaas la qabto lana xiro. waxaan rabaa marka inaan idinla wadaago askarigaasi wuxuu ku xiran yahay qaybta dembiyada CID ayuu ku xiran yahay. waana la gudbin doonaa sida taliyaha ciidanku uu amar ku bixiyey. waxaa loo gudbin doonaa maxkamad. horeyna waxaa u xiraa 32 isugu jirta saraakiil xigeen iyo dabley oo dembiye kala noocnooca horey u galay oo uu ka mid yahay taliyihii saldhigga wardhiigley uu ka mid ahaa. hadalka afyeenka iyo xarigga askariga ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo saacadihii la soo dhaafay uu baraha bulshada si weyn ugu dhex muuqday muuqaal laga soo duubay askarigan la sheegay in la xiray. rag loo heysto in ay ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay magaalada Nairobi ayaa maxkamad ka soo muuqday. maxamed axmed maxamuud ayaa ka waramaya. maxkamad ku taala magaalada Nairobi ayaa maanta waxaa la soo taagay 5 qof oo loo haysto inay ku lug lahaayeen weerarkii talaadadii la soo dhaafay lagu qaaday magaalada Nairobi hotel ku yaala. 5 qof ee maanta la soo taagay maxkamadda ayaa waxa ay kala ahaayeen 4 qof oo u dhashay wadanka Kenya iyo qof Soomaali ah oo la sheegay sidoo kalena inuu haystay dhalashada wadanka Canada. dacwad oogayaasha ayaa maxkamadda waxa ay ka codsadeen in la siiyo maalmo dheeri ah si ay raggan kiiskooda u soo baaraan. maxkamadduna waxa ay ugu dambeyntii ogolaatay in 30 maalmood xabsiga lagu sii hayo 5 qof ee lala xiriirinayo inay ku lug lahaayeen weerarkii lagu qaaday talaadadii la soo dhaafay hotelka Dusito ee ku yaala magaalada Nairobi. al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaas waxaana ku dhintay 21 qof halka dad ka badan 28 kalena ay ku dhaawacmeen. ciidamada ammaanka ee Kenya ayaa qaaday howlgal ay ka fuliyeen wadanka oo dhan laguna baadigoobayay cid kasta oo lagu tuhmay inay weerarka ku lug lahaayeen. laamaha ammaanka ee wadanka Kenya ayaa sidoo kale wali waxa ay ku raad joogaan dad kale oo la aaminsan yahay inay xiriir la lahaayeen 5 qof oo qaaday weerarka lagu qaaday hotelka magaalada Nairobi. waxaa la filayaa in dacwad oogistu ay soo dhamaystiraan baaritaanka kiiska loo haysto 5 qof inta kadibna ay maxkamadda dib ugu soo laabtaan isla markaana dib loo dhageysto dacwadda loo haysto 5 qof. saacadii hore ee maanta oo Jimcaha ayaa warbaahinta wadanka Kenya waxa ay wariyeen in qof ka mid ah raggii lagu dilay weerarkii ay ku qaadeen magaalada Nairobi uu ahaa wiil uu dhalay askari ka tirsan ciidamada ammaanka ee Kenya. dil salka ku haya aana qabiil ayaa mar kale waxa uu ka dhacay xadka kala qaybiya gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Yoonis Duraan Cali ayaa warkan faafahinaya. iyadoo maalmihiina dhaafay ay xiisad dagaal oo beelo walaalaha u dhaxaysa ay ka taagnay deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta waxaa deegaanka ka dhacay dilal salka ku haya aanooyin qabiil. mid ka mid ah labada beelo oo xiisadooda ka taagnay deegaanka Ceel Baraf tuulooyinka hoos yimaada ayaa waxaa lagu weydiiyay in maanta ay ka dambeeyeen dilalka ka dhacay deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe tuulooyinka hoos yimaada. dadka ku dhintay dilalka la xiriira aanooyinka qabiil ee maanta ka dhacay tuulooyinka hoos yimaada deegaanka Ceel Baraf ayaa waxaa lagu sheegay 5 qof halka taawaca uu gaaray 4 qof oo intoodaba la keenay sida wararku nagu soo gaariyaan isbitaalka degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. gudoomiyaha deegaanka Ceel Baraf ee maamulka Hirshabeelle Cabdullaahi Xaaji Maxamed oo la hadlay idaacadda kulmiye xafiis wareedkeeda Muqdisho ayaa waxa uu xaqiijiyay dilalka aanooyinka qabiil la xiriira oo loo geystay dadka shacabka ah ee ku nool deegaanka Ceel Baraf tuulooyinka hoos yimaada. waa kan gudoomiye Cabdullaahi oo ka hadlaya arrinta ka dhacday tuulooyinka hoos yimaada deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. walo oo adool idinkeeda leeyahay kamida Hiiraan olooyin Hiiraan ayaa dad shacaba oo beeraley waxay ku dileen meel dhaxtaalka ah oo garastuure la yiraahdo oo ka tirsan deegaanka ka tirsan degmada Ceel Baraf. 5 qof oo shacaba waaye waa 5 qof oo shacaba iyo 4 dhaawaca. waa dad lagu soo duulay oo adool idinkeeda leeyahay deegaankooda ay degan yihiin iyo beerahooda lagu haystaba waa sidaas waaye. dadku mid meel ay isla joogeen dhalinyaro beeraley ayna ahaayeen. aad iyo aad dad bermageydaha ku jiray oo caruura 2 caruur oo dadka 15 jira ayaa ku jira qaarkoodna waa dhaawac qaarna waa la dilay isbitaalka Jowhar hadda qaarkood ku sugan yihiin. toddobaadyadiina dhaafay ayaa deegaanka Ceel Baraf iyo tuulooyinka hoos yimaada waxaa ka taagneed xiisad ka dhalatay aanooyin qabiil oo u dhaxaysa beelo walaalo ah oo ka kala soo jeeda gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo ka wada tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle.
warka habeen ee keenin ayaad dhageysanaysaan dhageystayaal akhbaaraadkii caalamka ayaa inoo harsan duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr jabuuti u doono qarax loo adeegsaday mid ka mid ah gawaarida xamuulka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Bogota ee caasimadda u ah dalka Colombia weerarkan oo ahaa kii ugu xumaa ee ka dhacay caasimadda dalka Colombia muddo 16 sano ah ayaa waxa ku dhintay ugu yaraan 21 ruux halka 68 kalena ay ku dhaawacmeen wasaaradda difaaca ee dalka Colombia ayaa sheegtay in weerarka loo adeegsaday mid ka mid ah gawaarida xamuulka uu saarnaa qarax culeyskiisa uu gaarayo 80 kilogram dowladda Colombia ayaana ku dhawaaqday weerarka kadib 3 maalin oo baroordiiq ah ugu dambeyntiina dhageystayaal dowladda Zimbabwe ayaa jartay internetkii laga isticmaalayay gudaha dalkeeda kadib markii ay bateen dibadbaxyada looga soo horjeedo dowladda shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega internetka ayaa dowladda amar waxa ay ku siisay in ay jarto isticmaalka adeega internetka dadweynaha reer Zimbabwe ayaana haatan awood u lahayn isticmaalka adeega internetka guud ahaan warkii habeenimo dhageystayaal caawa naga inta cid warkeena uu seego radio kulmiye.net ay ka heli kartaa nabadgelyo